dadku laba ay u kala baxaanuun cid fursadda ka faa'iidaysata iyo cid fursadda ku khasaarta qof aan dhallinyaranimadiisii waxba ku qabanin cilmi ku baran xoolo ku xoogsan ummad wax ku tarin dad ku hoggaamin wanaag ku qabsanin hurdo iyo filim iyo kubad iyo orod iyo seexasho iyo suuq warwareeg iyo intaa ku dhameeyey qof waqtigu caafimaadka qabay ismashquulin iyo fadhi ku dirar kaga dhammaatay markuu xanuunsanaya dee waxbaba qaban kari maayo badan qof waqtigu firaaqada lahaa qofka dhallinyaradii waa wada firaaqo inuu isagu camal samaysta mooyaane walidaalika ayuha alikhwa da'dani waa da' qofku markay dhaafto u calaacalo umamkana cidda dhista ee isbeddelka samaysa ee hoggaanka u qabata waa dhallin saxaabadii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waxay ahaayeen dad dhallinyaro ah oo nolosha beddela ninka dhallinyarada ana markuu dariiqaa raaca saxa ah dariiqa ah inuu ummaddiisa iyo dadkiisa iyo aakhiradiisa u xoojiyo marka uu raaco aalaamtayna haysata waxaa ka mid ah dhallinteenna oo aan meelay u socotaba garanayn hadaf nolosha kama leh muxuu rabaa inuu nolosha xaqiijiyo waxba dunidu markaa aqoon bay isku hagtaa innaga laakiin alamkayna haysta waxaa ka mid ah fashal baynu isku hagaynaa dhallinteenna waxay rabtaa inuu seexdo wax cuno timaha saliideeyo mar iska xiiro mar qadaadka ka gooyo mar xagga hore ka gooyo mar surwaalka dhajiyo mar dildillaaciyo shaqaladiisu isaga waa intan waar iskuulka dadaal war waxaan qaba maxaad sheegaysaa hadhow odayguba soshiyaal buu qaadan jira annaguna soshiyaalkaan qaadanay ama tagsiilaan noqon doona haddii aan la yidhaahdo iyo baskaan kaxayn doona marka inuu noolaaduu ka fekerayaa caqligiisii wuxuu ku soo koobay maxay inuu noolaado waayo tagsiilanimadan iyo basnimadan iyo waa nin wax kale ka waayay inuu noolaado raadinaya maaha inuu dunida tagsiiluhu miyuu tagsiile u yahay inuu dunida wax ku soo kordhiyo basluhu maaha xirfadaan caayayo waa dad xoogsanaya laakiin shabaab ummadi leeday caqligoodu inuu noqdo tagsiilaan noqonaya ama foor bildahay eeganayaan inuu noqdo inay darawalla noqdaan waa dad hamigooda ugu sarreeya uu yahay inay noolaadaan ka warran qof bini aadam oo ilaahay abuuray oo hamigiisa ugu sarreeya uu yahay inuu noolaado umamka dunidu cilmaa lagu hagaa innaguna dhallinteennu hablayaynama waa isku dar weliba hablahaan ammaanaya waayo intaan dhalay iyo intaan arkayba hablaha waxbarashada ku sarreeya hablahaaba xagga jaamacaadka taga iyo iskandari dhammaysta iyo hore u sii socda sidaa awgeed alamkayna haysta waxaa ka mid ah fashalkaasi xagga waxbarashada ka dhacay iyo caajisnimadan iyo aqoontan gaabka ahee waxa ugu fududuun la qaadanayo arday waliba wuxuu isku dayaya waxyaabaha fudfudud ee meelaha un qalanka iyo waraaqda lagu wadwado inuu wadwado war waxa qaada hadda tana wuu adagyahay buu ku leeyahay oo hadduu adag yahay maaduu bini aadam ahayn oo waxa adag u badheeri karayn mar rabo wuxuu rabaa wuxuu marna seexdo marna tv-ga daawado marna kubadda soo cayaaro hadhowna imtixaanka la yidhaahdo maad saaqidin ee waad tamshi horaad u socon kartaa la yidhaahduu raadacaynaya laakiin inuu wax soo kordhiyo oo qofnimadiisa sugo oo bini aadamka wax ku kordhiyo dunida wax keena diyaaru maaha waxaan leenahay ayuha alikhwa dhallinteennu marka xataa qaar badan oo jaamacadaha ka baxay waa shahaadatu zuur axad alculamaa baa waxay ka sheegeen shahaadatu zuurku waa maxay bay dhaheen qolo jaamacad ka qala jebinaysaa waa taa hadda qaadan doontaan buu ku yidhi markhaati beenaaluhu waa waraaqda laydin siin doona buu yidhi markhaati beenaaluhu jaamacad buu ka baxay aan waxba tayagaynin dhallinteennu waxyaabaha aalaamta ka jirta waxaa ka mid ah waan soo tilmaamay mar horena ihtimaamuhum billacb cayaarta ayaa ka weynaatay nolosha ma diidani cayaar
qofku inuu jidhkiisa dhiso oo isdhiso وعيارتو جعليه وعيار وكبدها النقطة باسكتها النقطة أوردها النقطة إن لا عيار ماها مشكلة لكن إن هدف الحياة النقطة وحلون نوليين النقطة وحضون نوشين النقطة يناد لاعب نقطة وحب الدنيا كما تسوكر للمركة خسارات شباب كانوا وحي أبضا هدي ما أنت وحي جديان ويدينه يا علماء الدنيا وحكو سوكر لسي قرانيا حتى قوار رير البيت كي قالدا محاد قراني سهدين ويدينو حلقة يابا لما مرد إنو كحسوسته وحا علم الدنيا يالا وحي كان هدان ويدينو ضدك مسلمين تايا هليا دي الدنيا صومرية صحابة دي نبي محمد محاد قراني سه حلقة يابا ينان وحبا قران لكن ما انت هدان ويدينو تيمامك الدنيا عيارك ور يا اسبيسو مانشستر هبل باوا مدريدنا هبل باكا ميل هبلاين هبل با واحد تيم دنيا جوجا كو دفاع كعياره وركا كاله wuxuu yaqaanaa inta caruura u dhalay fasixi dhaweyd halku tagay mas'aladka meel heblaayo marayay iyo wagaal yar oo aan wax ka dhaxeeya jirin yani hadafku markuu lumo maka Soomaa halkeenuu tukanay muslimiintu de Madiina islaam mooyaan aan gaal laga ogolayn ba Soomaa ardada iskuulada dhigata subaxii iskuulka khamiisku waa dirays dhammaantood khamiis bay sitaan casarkii haddaad soo baxdo markaa qof dhalinyaro arki maysid ilaa iyo garan isboortiya oo nambar dhabarka kaga yaala halkana magac weyne kaga qorayay buu sitaa waxa dunida cayaara arkaysaan makay dhex tubay adu meel kale maxaad u malayn marka haddii maka foor bildaha yaallaa u yahay maka haddaad saa u eegto inaan yaroo dugsi dhexe ku jira garanku sito dhammaantii waa sport waana maradoon iyo faaladoona halkaa kaga wada qoran yani kuwaasaa ku wada yaalla idan waa alam itijaahii shabaabkeenu dhanku u sii socdo oo runtii waa alam xooggan oo jira waxaan leenahay alamka dadkeennan haysta waxaa ka mid ah kuwa u dhigmo tacalluq shadiid ay aflaamta iyo muusikada iyo waxaas waa hadafkii ka lumay aalaamta muuqata waxaa ka mid ah haddaynu li qur-aanku dhalintu inoo tilmaamay kuwa waalidkooda ateeca aalaamta muuqata waxaa ka mid ah shabaabkeenni iyo waalidkoodii uu la fududaaday khafiifsaday wax weyn u arag warkiisu ka soo qaad ma leh ixtiraam ma jiro inantu wax laga yaabaa hooyada inay tidhaahdo dee maxaad aniga horta dheriga igu dirtaa karsada daydinba waa wada joogtaana waa dhantiine haddaba waa inantii dhammayda la dhalay guriga joogtay inanku wax laga yaabaa haddaad tidhaahdo ninba ii sheegaya aabba koobka ay soo qaad baan ku celiyey buu yidhi laba jeero maalintii dambe wuxuu yidhi horta aabba mahaandhi ka baa halkan unba fadhiya xodhaya waxay soo qaatay isagu yacni caqligu wuxuu ka gaadhsiisan yahay aabbihii markuu yidhi koob ii soo qaad inuu arko odaygu mahaandhi ka baa kaan loo shaqaynaya muu koobkiisa doonto waa alam runtii alam halkuu ahaan lahaa inan iyo inanba dad waalidkooda adeeca ducadooda u arkaa wax weyn taladooda u arkaa caqli nolosha soo tajribeeyo ka weyn yani waalidka wuxuu soo jiray noloshu maaha tanqal iyo buugga lagu dhigto qura noloshu waa tajaarib alxayaa waa qofka bini aadamka wuxuu soo maray waalidku nolol buu soo maray caqli badan buu sidaa ay ahayd inaad ka dhimbil qaadato adigoo dhallinyaraa ka tusaale qaadatid waxay ahayd inaad dareentid nicmatul wujuud xataa aabbahaabaa leh waxaan leenahay waxaasoo dhammi waa aalaamtu sheegay sheekh saciid ibnu masfir waana aalaam caalam alislaami oo dhan haysa haddaadu isagu sacuudiga ka sheegay meel kasta ka taagan aamaashaynu u baahannay waa maxay waxa weeyaan inaynu abuurro dhallin toosan oo ku toosan diinta rabbi dhallin toosan oo ku toosan maxay diinta rabbi subxaana wa tacaala inaynu abuurno dhallin toosan oo ku toosan waxbarashada iyo cilmi baadhista eraygaa waan ku celcelinaya ikhwatii waayo idinku jaaniska haysataan soomaaliya kuwa jooga jaaniskaa ma haystaan intaasoo jaamacadood baa ka furan laakiin waa kuwan qalinka iyo waraaqda la isku madoobeeyo wuxuunbay tari insha allahu tacaala laakiin idinku intaasoo jaanis baa haysataan
oo wadannada ku nooshin duwalka jooga ay rabaan inay lacag idinku bixiyaan oo professoradiin sameeyaan oo wax walba oo ay fan baad baran kartaa laakiin dadkii himmadan lahaa baa liita idan aamaashaan qabaa waxa weeyaan inaynu dhalinteenna dib u afuufno oo ku afuufno cilmiga iyo sugistiisa waxbarashada iyo qiimaheeda markaasaynu noqonaynaa kuwaynu la joognana dad muxtaramiin ah oo daatadooda sugaya dadnimadooda haddaad noqotana waddankaagaad noqonaysaa qof wax ku biiriya waxaa laga yaabaa dad badani inay markiiba kuu soo qadimaan caraaqisha yaryara ka hor imanaysa loon baa la qaadanaya loon waxaana lama ogola kan lama ogola war dadku waxbuu bartaa isagoo aan loon qaadanayn waxbuu bartaa wuu dadaali karaa qofka bini aadamkii wuxuu ku xidhxidho war halkan baa timiyadaan cidina kuuga keenin waxaa qaarad iyo bad jiroo dhan baad ka soo gudubtay markaasaad leedahay jaamacaddan waddada loo maro ma garan karo hada macquul ما معقول آخر الدنيا بات كتمي ديورات فول عركة كبح بدمر دولك تشيح صحارى مر بدمر ما لا تكسب بودي ما شرته وحاصرنا واحد كجبودي عقلك كو أديك ستساد وحاصرنا نمر لها عقل جاينا وحكو برنكري ويدو مالين ما ينشريش وحبرشاد ماله مالها دب بيلاده أرض يقول جوا فقير أنتو أرضي مشكلات بدن بيلاده عدادس بدن بقوله كل مية مررك قاركود وحلا أركا إن مدب كاغو راسيستي وحلا مداد لكم مررك قاركود وحلا أركا إن عندي أديك الجوجو تلقلين وحبرشوين كسره ما مباورين أدوات كان نقطو شقوين كوسا قبته لكن أديك حاجة سره هنجوري كاجي كده ده هنجوري يا حصان نغني ولا يدي ده لاف ما هي وحن مركا كوعل علينا يا لي آماش يدي ديلدو رجدو أنقبوا وحكم ده inay dhalinteennu dib u sameeyaan najaax cilmiya rag iyo dumarba inay sameeyaan maxay najaax cilmiya guul cilmiyeed amaasha aan qabo waxa ka mid ah dhalinyaradu waqtigooda inta ugu badan leh inay wax macno leh ku bixiyaan rumuustaad caalamka maqasho meeshu doonaha ka yimaado وددالي وحيكو أنفعيا كددال وحا إنو قبنا صدح قيبات بايو قيب سمان وحوح أنفعه يوحوح لبه يوح بلا معناه صحيح تمام شيء أما منفع بولي أما مضر لي أما وما لا يعني وحن قيمة لهين وحن فعك دال بالنبي معناه دوا محي لما ذاك لكتك وحي وحدي بيا يسقى كفقو وحي وقتك كانوا من أيام فائدة الدنيا مد آخرته أنا لهين السناس كتك دل يراني مضو أنت وقوب بضن له من بدن وكم يختي وضوح كل ما لا ينفع ولا يضر هذا الضر كبو حق سحين تبدن دل يردو انت يرو اسكول كتغو اما مساجدك ولا ودا كتابك اخستمو يعني انت كلودن بلا معنى ودا وانك دل يردا انت بدن وقت اد وبدن بو هيستا الى مسؤوليه دي ما صارا عرور كما وروريو مسؤوليات كلام ما صارا شقاكم سي سocdo inta ugu badan leh marka ninka dhalinyarada inta badan wuxuu garan waaya waqtiga wuxuu ku qabtaba maadaama aanu garanaynin waqtiga wuxuu ku qabto inta badan bila macno kaga luma meelaha fadhiso oo iska sheekay maanta oo dhan maqaaxi fadhiso sheekay ama kubad iska ereeriya la qaatay iska daawo kan daawanayo wuxuu heli maayo inaha xanuunayo on TV war fadhiyo indhu ba ku daalay labada keen ereeriya waxa laga yaabaa in la yiraahdo jirka uu dhismay ama uu daalay ama exercise baa uu sameeyaa laga yaabaa laakiin nigan intuu kursiga hor dhigtay ee daawanaya si wax ma heli maayo nabigu wuxuu leeyahay ihras ala ma yanfa'u ku
كد دال وحيك أنفعية وحاسي أما منفعة دون هيش أما منفعة آخر هيش أدون كاغا كد دال وحيك أنفعية وحبرش هديتي شقة هديتي وحكال هديتي وحين أدون كمنفع كوله الشرع يقول لي هي كد دال بالويل وحكالوا له يقول كد دال محي وحين منفعة آخر له ولبا علماء واحد هذا لبدا منفعتي خلافان كي الله الرئيسية منفعة آخرة الله الرئيسية هذه أرنو النقضاء ولا يضيع وحا قبطه وحقا العقل وتسهيل لكن صلاة دينا ويكاتيسا كيف هذا الرئيسين يسا الصلاة كهر الرئيسة منفعة دنوية واجبات كده أخروية أبا كهر رئية محي منفعة دنوية سأوغد النبي حلي عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك وروحك وأنفعي كد دال من النبي الله شاء وحك استه وقتك أما آخرها كوجرو أما أدونها كوجرو وقتك هاي سطح اللي يردوا مركو هرنا وقتك ضيع ما هدا ودك مركو جوابنا وحيدا هدا برجعنا اللي يردها سيال هدا سدايل وحنا مركو حضاد مطرس إما كا هاي سطح وقت ويه يويد كلامي وقت ويه كلامي ووحى وقال السنة هاي سطح والرسمالك وقبضا ووحى أن لإبسان كريم والله بحين كريم والله ما هن كريم وملك اللي سهل كريم تغير كل أفطار دي بسهل ماشي تريدك أقول لي أن أرسل سهل ما هي إذا النبي عليه الصلاة والسلام حنات المامية احرص على ما ينفعك وروحك وأنفعي كددان واستعن بالله إلهنا قال ما يسوء إلهي قال ما يسوء محي ما جرى قف اسقف لني قف كمؤمن كاي وحرم يسين لا حول ولا قوة إلا بالله وحول بين إلهي قعنتي سكجران سادر أدي القرآن كوحلا ينوغت المام إياك نعبد وإياك نستعين بعد ما لنك استطر هذا إله وأدقى نكو عابدين وأذان كالما كان البينك كالما ويدي سنين وحلا ينفر مركا والنبي عليه الصلاة والسلام واستعين بالله إلهي كالما يسوء قرقارسو سيداو قيد بقفك مسلم وحك استوقبنا بسم الله وكب الآباء بسم الله إذا نوامحي يعني تستفتح وتستعين واحد قرقارسان يسا كفرا يسا وحول با إلهي مقعيس إلهي بضربطين قرقارسته مركا واستعين بالله بنبوين عليه الصلاة والسلام وحيقوا أنفعينا كل دال وإلهي كالما يسوء ولا تعجز ها عاجسي دالين يرادو انت بدان waxa ku dhacda markuu ama wacdi soo dhageysto ama iskuulka wax ka soo dhageysto ama waxa kan maalin labadu xamaasadooda dabeetana waxaan isku dabar hadhow markay laba casho gaadhana farhu ka qaada nabigu wuxuu ina leeyahay alayhi salaatu wasalaam wala ta'jis عاجسي awood beeli أي استمر في العمل طاعة إلهي عمر ما دام لقولي كد ذا الوحيك أنفعيه وإلهي ترساره وحل لقولي كن مستقيما على هذا الطريق ولا تعجز عاجسي وهكا عاجسي إن أضمحي عمل كاغو وقوقو نبقى عليه الصلاة والسلام وحينات المامية أعماشه وغفي عنه كلا دائمه لا جوجتيو نبغى هادو شقة قبطه وجوجتين شري قفك مسلم كي وحفي عن جدول انتو سمايستيو كل نغمه جدول كمركو هوري وحبها بوحيني وحانت قبان كرينا داد مركو هوري قررته هدو ودي كريميسي لكن إناد قبان كرتو كردقو دبي تنوض مركاد انتا كاتكاتو هدي وقت كوسو هدانا وحكا لكو بوحي وض ويناد عادة كردقتا إناد وحجوكتين كرتو قرآنات قيبتها النقطة علمات برتها النقطة شقاءات قبصتها النقطة وحدونيها النقطة وحي خير كتير منفع كتير شوكتين تبتنا النبي عليه الصلاة والسلام حديث كوكب قبينيا وإن أصابك شيء فلا تقل
haddii markaad intii lagu faray adigu aad samayso wax dhacaan sidii aad moodaysay ay noqon weydo ha odhanin low annii facaltu kaana kada wakada haddaan sidaa yeeli lahaa sidaa yasa ha murugoonin ee waxaad tidhaahdaa qadara allahu wamaa shaaa facal ilaahay baa qadaray wixii uu qadarayna rabbi subxaanahu wa tacaala ayaa dhacaya waayo lowda nooca kani waxay furtaan buu nabigu yihi albaabka shaytaan waa tufta camal shaytaan waxaad ogsoonataa wallahu gaalibun calaa amrihi walaakina akara annaasi laa yaclamuun adduunkana ilaah maamula buu leeyahy ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu doono unbaa ka dhacaya waxaad adigu mooday maaha waxa dhacaya wixii rabbi go-aamiyaabaa dhacaya laba adigu ma ogid waxa faa'iidada badani ku jirto ilaahay baa xakiima oo wax walba meeshuu ku habboonyay dhiga adigu ma garanaysid si awgeed baa qur-aanka ilaahay wuxuu inoogu tilmaamaya wacasa an takrahuu shay-an wahuwa khayrun lakum wacasa an tuxibuu shay-an wahuwa sharun lakum waxaa la arkaabaa rabbi leeyahy subxaana wa tacaala inay idinku wax jeceshiin inay sidaa u dhacaan oo uu idin yahay bashar waxaad ka hatana waxaa laga yaabaa inuu kuu yahay maxay khayr idan alqadaa walqadarna aamin marka hore adigu wixii lagu faray iyo asbaabtii iyo itaalkaagu intuu ahaa iyo allo aad gargaarsato la kaalay marka dambena wixii alla qadaray raalli ku ahaw waayo lowdan dambe aad akhrinaysaa horta wixii dhacay waxba ka bedeli mayso adigana tiiraan iyo murugun bay kugu kordhinaysaa marka albaabkaas ka xig wax tegey adigu waxba ka bedeli kari maysa waa sidii uu dhacay haddii sidaa la yeeli lahaa haddii sidaa la yeeli lahaa haddii sidaa la yeeli lahaa dee haddii sidaa la yeeli lahaa lama yeelin mana suurtagal ha in la yeelo way tagtay iminka maxaa yaalla waxa yaalla inaad adiga murugo kugu haynin waxa yaalla hadda shaqada aad haysa inaanay kaa mashquulin waanad murugo meel la fadhiisanin iyo inaad dawaqdaa waxba tari mayso idan baabkaasi waa baabka shaytaanku dadka ku wareeriyo waa camal shaytaan buu nebigu yidhi lowda noocaasi marka waxa meesha yaallaa wuxuu yahay ou nabigu inogala talinayaa mu'minka xooga badan baa ka khayr badan mu'minka daciifka ee diintiisu dacfigu ku jiro labadubana mar haddii iimaan laga helay khayr bay ku sugan yihiin wixii ay anfac kuugu jiro adduuniya aakhiraba ku dadaal ilaahayna kaalmayso oo gargaarso hana caajisin wixii dhace ee tagana ilaahay qadartiisa raalli ku aho xadiidka sheekhu uu cinwaanka ka dhigtay isagoo kooban intaasaynu ku tilmaamaynaa sala allahu calaa nabiyina muxamedin wcala alihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin مشكلة إنها هيستا waxay tahay taaqadii allayna siiyay awoodeeni ayaynu xidhnay markaas waxa la inaga dhaadhiciyo la inoo sheegay inaan waxba la qaybi karin wax qaybku inuu adag yahay in buuga wax lagu qortaa inay fiican tahay computerka iyo waxaan la isticmaalay inay fiican tahay maskaxdu waa ku damqanaysaa dabeetana xad baynu gaadhnay safxadii aan idin lahaa aan qaybno haddaad akhridabada madaxu ku xanuuno ood wareerto qaadiba kari weydo laakiin waxaad u baahan tahay in yar lagu tadriibiyo in yar gacantayda inta la kala furo kale inuu kala furaabad u baahantay jirka bini aadamka ahi waa sida loo train gareeyo waa sida loo tababaro in badan baynu tusaalayaal waxaynu ku bixinay kuwan wax cayaara waxaad aragteen kuwan wax cayaara nin waliba halku cayaara buu weeyay waayo uu train gareeyay kuwa feerka cayaara qaarkan sare waa weeyay mijuhu waa wax dhuudhuuban sababtoo waxa weeyaan qaarkan sare loo train gareeyaa kuwa kubadda cayaara mijaha waa weynaada qaarka sare waa wax dhuudhuuban mushaarka markay iska bixiyaan waa feedha yaryar laakiin caguhu waa waaweyn waa loo train gareeyay يعني قفك بني آدم كان ماشي لا كوبعيا كوبعضة هداد مسكحداد تجابسة إند وحقيبي كرتو وحفظي كرتو وحبران كرتو ووحاد وفضط بخاري هدي اللي قال لها مسكحين تيدا اللي يقوم كوشرتي كوا بدنين كوا كله عصر جينا دافي قرن جينا دافي
saynisyahankii dunida ugu weynaaya ay yidhaahdaan waa saynisyahankii soo mara qarnigii 20aad waa Albert Einstein. Einstein waa oday yahuudi jarmal asalkiisu ahaa, yahuudina ah, yahuudi jarmal markii dambena Maraykan noqday. waa cilmiga physics-ka nimankii ku takhasusay, waa ninkii aragtidiisa ay ka soo burqatay nuclear weapon-kan la sheegaya iyo fikradahan TV-yadan iyo waxaan iyo waxaasoo dhammi nadariyaad physics uu leeyahay bay ka soo burqadeen.